الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal ku soo dhowaada mu'tamarkeenii sagaalaad oo ay idiin soo qabanqaabiyeen markiska Tawfiiq Islamic Center. maanta waa maalintii koowaad, muxaadaradana waa tii afraad, ciwaankeeduna waxaa weeyaan taariikh tataar, waana qaybtii saddexaad. waxaa inoo soo jeedin doona insha Allah sheekheena Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil. falyatafaddal mashkuuran maajuuran biidhnillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. waxaynu hore uga soo warannay taariikh ka mid ah ummaddii tataarka la odhan jiray ama mongolianiska. labadaba taariikhyahanadu aynu nidhi way ku magacaabaan. waxaynu soo sheegnay wakhtigii ay soo baxeen ilaa la soo gaadho 622 hijriyada. waxaynu soo tilmaamnay inay qabsadeen markaasi qaybo badan oo dunida ka mid ah. caalam alislaami waxaynu sheegnay dowladdii ballaadhnayd ee khawarzimiyiinta la odhan jiray, dowla alkhawarzimiya, inay tirtireen boqorkeedii hore firdhad inuu ugu dhintay jasiirad yar. inankii uu dhalee boqorkaaye marka labaad isku dayeyna isna firdhadkii inuu wadiga sind ka tallaabay oo uu xagga iyo indiya oo dowlad yaro islaamiya oo kale ka jirtay uu u gudubay. iyo Genghis Khan ninkii la odhan jiray boqorka oo ahaa Persia oo diyaarsanaya bulshadii ama dadkii uu maamulayay. haddaynu maanta halkaa ka sii bilowno iyo magaalooyinkii waaweynaa ee waddankaasi Khawaarzm ay lahayd oo la tirtiray. maalan taariikhyahanadu waxay tilmaamaan magaalada marwa waa merv ayay yidhaahdaan marka afafkan reer galbeedka lagu qorayo. reer galbeedka historianskooda qaar ka mida waxay yidhahdaan waa magaaladii taariikhda u weynayd wakhtigaas. inkastoo aynu odhan karno malaa baqdaad kamay weynayn, haddana waxaynu soo tilmaamnay iyadoo qura 700 milyan dad gaadhay, 700 kun oo qof in lagu dilay. taarikhyahanada qaarkood waxay leeyihiin qaxoontiyadii iyo wixii dambe ku madhay 1 milyan oo kale gaadhayaan. waxaynu soo marnay nisaabuur af carabigana lagu qoro oo iyadana xawaali 1 milyan lagu dilay. waxaynu soo marnay carri dhan oo la tirtiray. 622 hijriyada haddaan ka bilaabo oo aan gebagabeeyo qaybta yaree koowaad ee ka hadhay noloshii Genghis Khan. waayo Genghis Khan wuxuu dhintay 624 hijriyada. wakhtigaasi waxaa dib u soo noqday ninkii la odhan jiray Jalaaluddin ibn Muhammad ibn Khawarzm Shah oo aynu nidhi wadiga Sind buu ka tallaabay. ayaa wuxuu ogaaday in waxoogaa tataarka weeraradooda ay kala degeen. dabeetana webigii Sind buu dib uga soo tallaabay. waxbuu urursaday Karmaan meesha la yidhaahdo oo koonfurta waddankan Pakistan la yidhaahdo ah ayuu soo galay. wuxuu yimi nin la odhan jiray Sacdudiin ibnu Dakla. Sacdudiin waa ninkaynu nidhi Ghiyaathudiin bay wada dagaalamayeen oo iska soo horjeedeen, oo ah kan Jalaaludiin kan walaalkii.
sacdudiin ibnu dakla ayuu xilfi la samaystay isagoo ka soo horjeeda walaalkii waxaan in badan sawiradan ka arki doontaan iyadoo dawlad xoog badani oo tataar la yidhaahdo ay dunida weerar ku tahay muslimiinta oo iyagu isku mashquul ah laba isu haysta iyo mid oo iyagu kala dhammaan la jalaaludiin wuxuu soo baxay iyadoo nimay walaalayiin oo qiyatudiin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo sacdudiin ibnu dakla ay istilayaan oo laba gruub oo yaryar yihiin gruubkii walaalkii mooyaane gruubka kale ku biiray isna dagaalku xagga ka soo galay wuu soo socdeen wuxuu qabsaday galbeedka Iiraan dabeetana waxoogaa ciidana markuu urursaday xaggu tataarka kaga duuli lahaa ayaa xawalkii siyaasiga yani weershow xagga siyaasadda ku saabsan baa ku dhacay baynu odhan karnaa siyaasiyiintii muslimiinta waqtigaa noolay halkuu tataarka iyo ummaddan iska celin lahaa soo duushay ayuu weerar wuxuu ku bilaabay khilaafadii cabbaasiga oo sii daciiftay oo aan naf badanba lahayn xaggeeduu weerarka u qaaday magaaladan basra la yidhaahdo ee ciraaq ku taalluu 2 bilood go'doon ku hayay dabeetana xagga iyo baqdaad buu u dhaqaaqay baqdaad boqorkii markaa haysto aan mid fiican ahayn naasir lidiin illah ninkii la odhan jiray 47 sannadood buu xukunka hayay laakiin waaxid mufsida buu ahaa bay yidhaahdaan kaa dhankiisu u sii kacay boqorkaasi markuu maqlay dawlad khawarizmiin markii hore ay colahaayeen markuu maqlay waxoogaa ciidan oo isu soo urursaday iyo basro la go'doomiyay iyo xaggiisa loo socdo ayuu tataarka waraaq u dirtay uu leeyahay ninkaa ha layga soo gaadhoano waa khilaafadii dhammayd ee cabbaasiyiinta ee muslimka matalaysay oo rabta inay tataarka xilfi wadaag la yeelato si looga takhalluso jalaaludiin iyo waxoogaagan uu wato tataarku laakiin waxay iyagu mashquul ku ahaayeen dhul tiro badan bay muddo yar ku qabsadeen dhulkaas sidii ay u dejin lahaayeen dawladnimadooda ugu sugi lahaayeen bay mashquul ku ahaayeen marka way joojiyeen futuuxaadkii tirada badnaa ay sii wadeen looma soo jawaabin ninkii la odhan jiray jalaaludiin meelo baqdaad agagaarkeeda buu qabsaday dabeetana waqooyiga ciraaq buu u sii kacay faris dhulkii la odhan jiray buu qabsaday kor buu u sii socday faristu waa iiraan qaybteedan sare siiba kor buu uga sii socday waddankan yare hadda azerbaijan la yidhaahdo ayuu qabsaday dhanka galbeed buu uga sii socday azerbaijan markuu qabsaday waddankan ku xiga ee la yidhaahdo georgia waddankii la odhan jiray kurj ee luqa alcarabiya ay ku yidhaahdaan georgiyu haddana qabsaday waa ka sii socday wuxuu samaystay suldo waxoogaa leeg halkaa markuu marayo ayuu heshiis yar oo wakhti gaaban socday wuxuu la galay walaalkiisii qiyaasudiin la odhan jiray uu ninka kale ka taageeray dowlad waxoogaa iyabuu ka wintay markaa sanadka 622 ayaa waxaa geeriyooday khaliifadii dawla alcabaasiya maamulayay dawla alcabaasiya 137 bay soo bilaabantay markana 622 baa la maraya boqorkii markaa joogay oo naasir lidiin illah la yidhaahdo oo 47 sannadood xukumayay dawla alcabaasiya oo taariikhyahanadu ay yidhaahdaan wuxuu ahaa dadka siirada madowle dadka taariikhdiisu madowga tahay baa lagu tiriyaa marka laga warramayo khilaafooyinkii islaamiga nimankii xukunka soo maray 47 sanana wuu xukumayay taariikhdiisuna baal madow bay ku qorantay bay yidhaahdaan wakhtigaas u geeriyooday sanadka hijriyada ee 22 wuxuu iskaga gabagaboobay iyadoo tataarku wax duulimaad aanay soo qaadin laakiin muslimiintu dhexdooda ay isdildilayaan sanadkii 623 iyo 624 hijriyada markay uu soo bilaabmay waxa khilaafada islaamiga qabsaday nin marka taariikhyahanada muslimiintu ay aad u amaanaan waa ninka la yiraahdo al-dhaahir bi amrillah al-dhaahir bi amrillah waxay yiraahdaan aabihi aksigiisu ahaa yani nin aad u fiican oo aad loo amaano ahaa ولذلك بقى تاريخيا كمسلم كي وين اللي ابن الأثير وكم إذا رجي أحداث تاسي أما دعدوين كاسي وقت قال الله نولا إن كستوي سووا سقوط بغداد هرتاد ولنتي لكن هذا تاريخيا هذا هو وين وحكوا قريت تتارك وكم إذا وقت جي ونولا
ayaa wuxuu leeyahay khaliifada muslimiinta muu qabanin cumar bin cabdilcasiis kadib nin la mida ninka yidhaahdaa buu yidhi run buu sheegi karaa yani الظاهر بأمر الله wuxuu dhigayaa khaliifkii shanaad الخلفاء الأربعة markaynu ka nimaadno khaliifka la amaanay ugu weyne ka dambeeyay waa cumar bin cabdilcasiis cumar bin cabdilcasiis waqtigiisii buu leeyahay ilaa iyo laga gaadhayo waqtiga kan 622kii laga gaadhayo waa waqti 500 sanadood ku dhow 500 sanadood buu leeyahay nin u dhigma الظاهر بأمر الله ma qabanin khilaafada dadka muslimiinta ah taxation tira badan cashuur tira badan oo dulmi ahayd oo dadka laga qaadi jiray buu baabi'iyey maxaabis badan oo muslimiin oo siyaasiyiin u xidhan buu sii daayey dadkii fuqarada ahaa buu wax badan taageeray wax badan buu ka bedelay bay yidhaahdeen dowladnimadii laakiin waa sida uu sheegay ibnu athiir baa wuxuu lahaa wanaagga ninkan iyo bulshadan faasidka isuma cuntamaan ee u malayn maayo buu yidhi inuu waqti badan sii hayn doono taariikhyahankaasaa qoraya sidiisii baanay noqoto waqti badan muuse haynin 9 bilood kadibba waa geeriyooday allah u naxariisto waqtigii uu xukumayey nin waxtara buu ahaa laakiin 9 bilood oo quray ahayd waxaa qabsaday nin ka dambeeyey oo almustansir billaah la yidhaahdo 17 sannadood baan filayaa inuu xukunka hayay ilaa 640kii laga gaadhayay jalaaladiinna qaybtiisii uu qabsaday ayuu fasaadka ka waday dhacdooyin badan oo isbedelay waqtiga ma jirto 624kii markay taariikhdu maraysay yani taariikhyahanada muslimiintu inta badan sanad bay u qoraan tasalsulka taariikhiga bay ilaaliyaan 624 markay hijriyadu maraysay ayaa waxaa dhintay boqorkii dowladdii weynayd ee tataarka temurjiin la odhan jiray amase ku caanbaxay ee magaca ah jinkis khan taariikhyahanada qaarkood dhowr iyo 60 bay ku sheegaan qaarna ilaa 72 ayuu gaadhay cumrigiisu bay yidhaahdaan noloshiisii ninkaasi wuxuu ku dhammaystay dil iyo gowrac iyo baabi'in wuxuu ka tegay dowlad u dhaxaysa min kuuriya ilaa iyo baqdaad dacalkeeda eeraan beershiya dowlad u dhaxaysa yani waa dowlad ka kooban maxay kuuriya ka soo bilow china ku xigsii indayjayno oo dhan soo mar باغستان أفغانستان بيرشيا حاجة سنة وسوكا دولة ضب الله ربو كتجي وقت قول أنت ووقت ملا هذا اللي جت جوجو سداد بقول يسداد سنة ضد ملاها يعني يمكن حين مرينا تاريخها كنا في بقول يلا بيا صدر سنة اللي بقول يا فري الله واتكيبود أنت يعني سداد قرن كهر وقت اللي جت جوجو هذا دمشقين كاسي ود أنت وحي كان سطيبي دارين الدنيا دو يردك تحس الشو markuu dhintay way aaseen xabaaliya bumbuuni sumay sameeyeen waa la qariyay ila laan lama yaqaan xabaashiisa rasmiga ah meesha ay ku taal taariikhdaasi laga bilaabo 624kii waqtigu dhintay ilaa intii laga gaadhay 627kii saddexdaas sanadood waxa la yiraahdaa waxay ahayd fatratu huduu waqti deganaanshiya oo aan isbedel badan dhicin marka la eegayo dhanka muslimiin marka la eegayo tataarka iyo weeraradii ay hayeen laakiin xagga muslimiinta markaynu eegno fitankii iyaga dhexdooda yaalay sidii bay u karayeen dawladdii wadanka dhanka qabsatay ee madaxdii ka dhimatay ee waxoogaa khalkhalkii ku soo biiray may dhankeeda eegin ee ninba ninkii ay ishayeen xaggiyan joogay ayuu eegay dabeetana waxa dib u cusboonaaday jalaaludiinkii aynu sheegaynay iyo walaalkiisii kale qiyaasudiin labadaba waxa dhalay dawlad khawaarizmiya ninkii haysan jiray iyaga murankoodii baa dib u bilaabmo dib ay u dagaalameen ciraaq iyo faris persia ayaa dagaalo cusub ka bilaabmeen dhanka muslimiinta wadankooda intii ugu dhaxaysay oo ah shaam iyo masar iyo intaasi waa qalbi العالم الإسلامي bay ahaayeen oo qolana baray ka xigtay qolana galbeed bay ka xigtay qoladaasna iyaga is haysta oo dagaalkoodii ba tiro batay iyagoo inta cid xukunta waa reer qura
وصلاح الدين الأيوبي بقري لو نجري مسلم كهاي قدس دي بحرية وعدي وكتجي لكن إن ما دي سيبا الدولة دي أنت كلا قيب صدين هي وحي وصير لا يبقى يصرف هي مركزية يقوم هذا حيس كل شيء هي نوع حكى السعودة خلاق خلطرة بدن لح بقولي لح يلا باطنك مركز هاي أيا أيوبيين تدحدوا دي ستيل كيس كدي ليه متكمدة أيا بيت المقدس كي وحرية صلاح الدين كو أبترسنية متكمدة بقى يري قلا كريستنا نصارى ده إذا كانت إنسانية بيت المقدس بشرط أن ما الهبلاي سيق ولا هبلاينا إلى عدادية ولا كلاي ولا ليين دي بلوسية مسيحيين تبى تبقى عند اللوجو قليه بيت المقدس إن لصيه إمارات شام كويا لقار كمدة جلال الدين كي weerarkiisii uu iska sii waday Turkiga qayb ka mid ah buu galay magaalo khalaat la yiraahdo ayuu go'doomin ku qaaday waa magaalo yara adag bay ahayd go'doomintii waxay keensatay muslimiintii ku jirtay xad la yiraahdo ayda iyo bisadaha la cunay markii dadkii gaajooday wax la liqa la waayay ay iyo bisadaha la cunay akhiiranna way isdhiibtay wuu qabsaday markuu qabsadayna raggiina wuu laayay dumarkiina wuu adoonsaday caruurtiina wuu gatayba oo adoomuu ka dhigay hadda waa muslimiin dadku sidaa u galaya dad muslimiina tataarkiina dhinaciisa joogaan waliba tataarku dawladii aabihii bay rideeniyay isagaba nimankii wixii ku sameeyay xaqooda ma eegina kolba tuulo yaroo muslimiin ama gobol yaroo muslimiin joogto dhankoodu duulimaad u sii wada tataarka markaynu iyaga dib ugu noqonno odaygoodii wuu dhintay odaygu afar wiil oo dhigi cabaabu dhalay oo la mid ah isaga laakiin labadii waaweynaa ayaa isqabtay Chachi ayay carabtu qoraan Joji na qoladan gaaleed baa qora Joji ninka la yiraahdo iyo walaalkiisii ku xigay ayaa isdilay markaasi oo isqabsaday Jagati kan la yiraahdo Jagatigu waa luqadan imka luqal Jagatiya la yiraahdo meesha ay ka timi tataarkan muslimiinta hadda meelahan Yurubta qaar degan iyo Raashiya iyo waa luqada ay ku hadli jireen ee abtirsiintoodii hore ay ku xiran tahay Jagati oo inankii labaad ah dhaqanku wuxuu ahaan jiray inuu qabsado boqorka inankiisa ugu weyn ee Jooxiya Jagati bay soo taagay Jooxiya Jagatiga ay soo taagay wuxuu yiri marnaba uu hoggaansan maayo kaasi inuu qabsado dhexdhexaadintii waxay noqotay in la yiraahdo ninka saddexaad qabsado ninka saddexaad waa Okotay nin la yiraahdo Okotay iyo Okotay ay carabtu qoraan qoladan qaadnaa Ogidiya ay qoraan qoladan reer galbeedku ninkaasi ayaa dawladnimadii oo wiilkii saddexaad ee odaygu dhalay ayaa dawladnimadii gacanta loo galiyay dawladii markaa waxa bilaabantay dawlad cusub oo uu xukumo Ogaday ninka la yiraahdo Okotay markuu wadanka qabsaday wuxuu dib ugu noqday inuu dawladiisii dib u habeeyo inuu dejiyo dawladda halkii salka u ahayd oo ah China iyo Mongolia 624 ilaa 627 saddexda sanadood wuxuu ku jiray bay yiraahdeen inuu systemka dib isugu hagaajisto oo muramada walaaladii uu dhameeyo dawlad xoogan ay dib u noqdaan kadib wuxuu magacaabay qaa'id caan ah oo Shormajan loo oran jiray ayaa waxa loo magacaabay inuu weerarada bilaabo caalam islaami weerarkii lagu qaaday taariikhdu markay hijrigii mareysay 628 ayaa waxa bilaabmay ninkaasi ciidamadiisa inuu dhankan u soo kaca haddaynu dib ugu noqono inta ay ishabaynayaan tataarku muslimiintu sidii bay isu dilayeen oo furqadii dadka muslimiintu sidii bay u taaleen Jalaaluddin marka la eegana Shormajan markuu ciidamadiisa soo bilaabay ee dagaalka ku soo qaadayba firdad buu bilaabay dabeetana waa la eriyaday aabihii markaynu ka warramayna waxaynu ka warranay isagoo intaasoo magaalo laga saaray oo ciidan yaro tataari daba ordayaan oo kolba meel ka dhacaya boqorkuna uu yidhi nolol ha lagu soo qabto sidii uu ordayay baynu ku tilmaamnay Bahrul Qazwiin inuu ka baxay jasiirad yaro Bahrul Qazwiin ku dhex taala buu ku baqtiyay baynu halkaas ugu dhintay kana dib baa loo soo eriyaday aroortiisii waa la qabtay waxaan waa la qabtay balaayaa isra ku dhacday waliba
جلال الدين ككني انت انت تاركو ارينين دغالو وحو لا غلاي مسلمين تي كاله الاشرف ابن العادل نكي لورن جيري oo xukuma ديار الجزيرة لبدن وبي عراق مرا حقودن وقooyiga waxaan oran karnaa waa Ciraaq waqooyigeeda iyo koonfurta Turkiga inta isku xukuma ayuu dagaal la galay dabeetana laba goor buu kaasi jabiyay Sharmajani ciidamadiisu way soo socdaan muslimkuna halkay isku sii dilayaan labadan kooxood baa isdilay laba goor baa la jabiyay Jalaaluddin waxa kaloo jira إيران قلبيت كده هي بغداد dhexdooda buuraley weeyaan buuraley yar oo dheer oo luuqa ku taala buuraleydaasi waxa degan طائفة إسماعيلية يعني طائفة شيعة waliba shiicada kuwan Ismaaciiliyada la yiraahdo aqa khaankan iyo kooxdiisi طائفة إسماعيلية degan kuwii xashaashiinta loo oran jiray bay ahaayeen طائفadaasi قلعة الموت اللي يراهدا bay lahaan jireen meeshaasay deganaayeen niman aad u dhib badan oo dagaal badan oo assassination iskana aad ugu fiican dadkan hoosta loo khaarijina aad u yaqaan bay haayeen qolada sunniga culbay la ahaayeen kadib waxay fakareen Jalaaluddin kan agtooda kolba cid maraya bay ka cabsadeen dabeetana tataarka ay waraaq u direen ay leeyihiin ninkii Jalaaluddin laba goor baa la soo jabiyo aad buu liitaa hadaa imanka jaaniska ka faa'iideysataan waa waqti laga takhalusi karo warkaas ay gaaray tataarki dabeetana way yimaadeen Jalaaluddin ayay ku dhufteen haziimo aad u foolxun si foolxun baa loo jabiyay wuu cararay sidii aabihii buu kolba magaalo galay sidii loo eriyanayay ayaa markii dambe magaciisa la waayay meel uu ka baxay ciidamadii iyo wixii iskaga tago kali firnaday boqorkii dhammaay muslimiinta looga taagalaa ayaa isagii waxa la waayay meel allaaliyo meel uu galay taariikhyahanadu waxay yiraahdaan sidoo meelaha ugu dhuudhuumanayay isaga soconayay show Kurdistan tan u dhex galay ayuu maalintii dambe wuxuu ku soo baxay baa la yidhi nin reer miyiga Kurdiya oo meel iska degan ninka reer miyiga Kurdiga barigii hore uu dagaalada waday buu walaalkii dilay dabeetana ninkii reer miyiga markuu ku soo baxay buu war kuma dahaydo malaha laga yara cabsadiyo wuxuu buu isiro wuxuu yiri Jalaaluddin baan hay Jalaaluddin ibn Muhammad dawla al-Khawarizmiya boqorkeedii baan hay ma ninkaas tahay waa si fiican waa marti sooray soo dhawow buu yiri martisoor fiican buu sameeyay habeenkii markuu khooriyayna intuu faas qaatay ayuu madaxa ka gooyay Jalaaluddin odayga reer miyiga baa ku tagay isaga warkiisu wuxuu ku dhamaaday isagoo Kurdistan dhex maraya ayaa ninka reer miyiga ka takhalusay bay yiraahdaan waxay yiraahdaan tataarku dagaalkii bay soo bilaabeen maadaama khawaarizm ninka qura ku hadhay uu kan ahaa kana ciidankiisii ay soo jabiyeen magaalo ay baaqigii u soo galeen si fiican bay dadkii u jabiyeen si fiican bay wax u laayeen taariikhyahanadu waxay sheegaan waxyaabo runtii aan rumaysan karin مثلا ibn al-Athir kitaabkiisa taariikhda markuu soo naqlinayo siday tataarku ula dhaqmeen dadkii muslimiinta ee meelaha joogay waa waxaanad imaka rumaysan karaynin wuxuu qorayaa nin qura ku soo baxa 17 muslimiina dabeetana farfarista buu yiraahdaa waa loo farfarista madaxu ka gura wuxuu qorayaa ibn al-Athir waxyaabaha qosol kale uu qorayo waxa kamid ah tataarkii layntii badnaayay dadka laynayeen dadku markay naftu isugu timaado لا والله لا بالله لا تقتلني لا بالله لا تقتلني بيدك ورنيه ما إلى ما هو داريه هيدلي وحلي تتاركي وحي سجقة تنير الوعي يا رمك عمرك كفتميان لا والله لا بالله لا تقتلني بيوريتشري بولي أسكرت تتاركو يعني الرياضة اللي سكمة الدالية وحكم هذا إلين لا بالله لا تقتلني دولة المنغولية أما التتارك وحي قبصدين مركا وحي دولة مسلمين أو دورية طبعا إنوران كرنا دول ما أنت إلى لبية طبعا ودانو ما أنت تشيره
وتركمانستان iyo Tajikistan iyo Afghanistan iyo waxaasoo dhan istaanadoo dhan soo mar ilaa Pakistan ku soo dar ilaa Iran ku soo dar ilaa Azerbaijan ku soo waxaasoo dhan bay qabsadeen iyaga iyo dawlad Cabbaasiya waxa u dhaxeeya markaa luuqii yaraaye ay deganayeen nimankii Shiicada Ismaaciiliyada la oran jiray taariikhda marka la soo gaadhay 629 ilaa 634 shanta sanadood isbedel badan may samaynin ee waxay isku dayeen inay dawladnimadoodii adkeeyaan meeshii dawlad Khawaarzmiya ay ka talin jirto dhanna iyagu caga dhigtaan inta waxa ku gabagabaysmay dawlad Khawaarzmiya iyo warkeedii oo aynu labadii muxaadaro hore kaga hadalnay halkan waxa ka bilaabmaya markaasi weeraradii labaad ee ay qaadaan nimanka Tataarka la yiraahdo nimanka Tataarka weeraro dhowr waynu akhriyi doonaa hadii waqtigu inuu sibo hadda halkan waxa ka bilaabmaya weerarkii labaad ee rasmiga ah ay qaadaan oo dhul cusub ay ku qaadaan weerarkooda rasmiga ah waxa loogu talagalay inuu hogaamiyo ciidan wato nin la yiraahdo Batu Chochi baa dhalay yani Batu waxa awoow ah Genghis Khan وباتو ابن جاجي ابن جنكيز خان باتو عيدا وطايا وحلو صدري بحر القزوين بدل لا يراهدو iyo meeshaasi wuxuu bilaabay markaa inuu Russia iyo dhankaasi weerar ku qaado wuxuu qabsaday webigan Volga la yiraahdo dadkii Turkida ahaa ee meesha waxa degi jiray Atrak dadkii Turkida ahaa ee webiga Volga la yiraahdo ayuu wada qabsaday korbu si socday 635 ayuu wuxuu weerar ku bilaabay markaa Russia caalamka islaamka xageedii markaa inuu soo jeesan ciidanka weyn waxa loo jeediyay xagaasi Russia ayuu dagaal ku bilaabay oo Russia magaalooyinkii waaweynayda ay lahayd oo dhan bay xabad u jiideen waxay qabsadeen magaalo Riidan la yiraahdo waxay ku xigsiiyeen Kolomon waxay ku xigsiiyeen Vladimir waxay ku xigsiiyeen Sozdal waxay ku xigsiiyeen Moscow caasimaddiya waxay ku xigsiiyeen Poryev waxay ku xigsiiyeen yani isay magaalo ilaa ay Tuzuk dhowr iyo 10 magaalo waaweyn oo magaalooyinka Russia bay qabsadeen haddaan si kale u tilmaamo waxay dhahdaan Russia masaaxadeeda markaa waxa lagu qiyaasayay ilaa iyo 17 milyan oo kiiloomitir murabbaca 17 milyan oo kiiloomitir waa imisa waa inuu dhigata dhulka Soomaaliya malaa 720 jeer Soomaaliya waa 600 iyo maxay 627 kiiloomitir bay ahaan jirtay jamhuuriyadda Soomaaliya intay ahayd dhulku laba laabmi kara yani inta soo jeer 720 jeer oo Soomaaliya ayay 2 sano gudahood ku qabsadeen waxa qiyaastaa dhul baaxadiisu Soomaaliya 720 jeer tahay oo 2 sano gudahood ciidan maray 2 years within 2 years bay waxay ku mareen wadankii Russia la oran jiray dhamaantii bay jiideen waa 635 iyo 636 magaalooyinka markay galaan dhaqankoodiina way ku wadeen ahaa inaan wax dhaqaaqa la sii deynin Moscow oo kale waxa la yiraahdaa dhagtay dhiiga si fiican ugu dareen 638 markay maraysay ay waxay bilaabeen markaa inay weeraradooda Yurub ku soo jiheeyaan Batu ninka la yiraahdo oo ina Georgia curadkii ama odayga ninkii weynaaye uu Genghis Khan dhalay ayaa dhalay wuxuu bilaabay inuu Yurub weeraro weerarka koowaad waxa lagu bilaabay wadankan la yiraahdo Ukraine waa wadan masaaxadiisu taa Soomaaliya ku dhadhaweyd waa 600 oo kun kiiloomitir halka Soomaaliya 627 ka ah Ukraine ayuu dagaal ku soo bilaabay Ukraine dhamaanteed buu qabsaday ilaa uu ka soo galay caasimadoodan Kiev ayuu qabsaday 639 markay maraysay ayuu ciidan yar oo ciidankiisa kamid ah Bayder nin la yiraahdo loo dhiibay weerarka bilow baa la yiri Yurub waa in la isku gaala bixiyaa markaa weerar buu ku qaaday markaa Polandiiska markii weerarka lagu soo qaaday ay Polandiisku waxay bariyeen Jarmalku inuu caawiyo boqorkoodii Henry Duck uu ka talin jiray Germany ayaa soo kaalmeeyay Poland iyo Jarmalku oo is wata ciidan ay wataan bay dagaalka ku soo galeen
tataarkii baa la kulmay si fudud ayaa iyagana looga takhallusay Polandna way qabsadeen Poland markay marayaan ayay hoos u soo dhaadhaceen dabeetana Majar Hungary wadankan la yiraahdo ayay weerarka ku soo bilaabeen Hungary-na si fudud bay uga takhalluseen dhammaanteed ayayna gacanta ku dhigeen waa laga sii socday Slovakia ayaa iyana cagta la mariyay waxaad moodaa Slovakia markay ka soo baxeen horay u socdeen Croatia ay cagta mariyeen ilaa ay ka gaadheen badan maxaa la yiraahdaa al-Bahr al-Adriyaati Talyaaniga dhinaciisa badan ku taala ilaa ay halka ay ka soo gaadheen qiyaas ninka Russia ka soo bilaabay ee Russia oo dhan qabsaday ee haddana Yurubtii bari ka soo bilaabay ee Poland iyo Ukraine iyo Hungary iyo Slovakia dhulkaas oo dhan soo qabsaday ee jooga Talyaaniga dhinaciisa waxa ka dhiman Yurub markaasi afartii dawladood ee waaweyn u hadhay oo waqtiga ahaa maxay Namsa Austria iyo Almaaniya Faransiiska Talyaaniga iyo Britaniya intaas ka hadhay inta kale cagtay soo mariyeen halka marka la marayo waxa ka dhacay wadankoodii isbedel Ogidiya boqorkii la oran jiray baa isna dhintay ee Genghis Khan ahaa lawlaa bay yiraahdaan taariikhyahanadu aan geerida Ogidiya dhicin Yurubta galbeed dhammaanteed iyana waxay ku jiri lahayd bay leeyeen gacanta tataarka idima celiseen laakiin markii Yurubta galbari ay gacanta ku dhigeen oo halka ciidanku marayo ayaa waxa dhintay boqorkii ka talinaya wadanka meesha tan ninka maraya ee dhulkan furtay ee ciidanka haysta waa ina Georgi waxa muran ka dhaxeeya Georgiyada waataynu nidhi aabihii baa lahaa boqortooyada laakiin walaalkiisii ka yaraa ninka aabihii walaalkiisii ka yaraa oo Jagtay la yiraahdo maadaama ay hayeen boqortooyadii waxa la siiyay ninkii saddexaad waxa markaa xilfi wadaag yara ah Ogidiyagan la siiyay iyo Jagtay oo inankii labaad ee uu dhalay boqorku labadaas xilfi wadaaga qolada tan iyo kii ugu yaraa ee uu dhalay Genghis Khan oo Tolu ay Arabtu qoraan Toliu ay qolada galbeedkuna qoraan ka yar oo aan ninkii askarta ugu badan dhaxlay yaani dhaqankoodu wuxuu ahaa wiilka yar boqortooyada dhaxalkeeda waxba kuma leh laakiin waxa loo badiyaa hantida kale marka waxa dhahay Genghis Khan 129 kun oo ciidan u ka dhintay 100 kun kan yar baa la siiyay bay yiraahdaan 29 kun kala saddexda waaweyn qaybsadeen bay ku tilmaamaan inagaan waxba dawladda iyo muranka ka dhaxeeyay hoos u sii galaynin ninkii la oran jiray Batu oo ina Georgia ama ina Jaji saado akhridaba ah oo Yurubta bari markaa gacanta ku haya ilaa Russia waxay kaliftay inuu dib u noqdo oo Krakow meeshii la oran jiray qoram Carabtuna ay qorto oo ah caasimadii Mongolian iska looga talinayay markaasi dawladda tana inuu dib ugu laabto oo Yurub dib uga baxo marka kan si uu uga qayb galo doorashooyinka iyo loobiga siyaasiga ka socda wadankii ninka madax ka noqon doona dawladda tataarku marka kan waxay ka talisaa Korea meel ay bari u xigto Polandna galbeed u xigto Poland ilaa Korea balad u qiyaas dhulka isu jira inta xagan balaca kana Siberia ilaa ay laga soo gaarayo maxay badda China inta ka dhaxle inta ka dhaxle ay xukuma dood ka dib madaxnimadii waxa loo gartay inuu qabto Guyuk ama Kuyuk nin la yiraahdo oo uu dhalay Okatay dawladda tan miisaanka ay lahayd waxaad ka garan kartaa wufuudii caalamka ka yimi oo ka mid yahay caalamul islaami 3,000 ilaa 4,000 oo qof baa ka qayb galay baa la yiraahdaa boqorka caleemasaarkiisii oo ah wufuud laga keenay maxay dunida wixii boqor yar joogay iyo wixii meelaha joogay si looga qayb galo caleemasaarka boqortooyadan ee dunida ka talisa sideedaba waxay dhadaan taariikhda maanta la hayo dawlad mar talisa oo tataarku intuu ka taliyay ka weynimay soo marin taariikhda bini'aadamka gaal iyo muslimiin waxa doonta isku dar dawlad mar tarisa
oo masaaxada dhulka mar qura nin boqor quri uu wada taliyo oo dawladda Tataarka ka ballaaran may soo marin ninkan yar ee cusub ee qabsaday Kiyuk la yiraahdo wuxuu isagu ra'yigiisu ahaa futuuxaadka in la joojiyo laakiin wadankii ballaarnaa ee la qabsaday in si rasmiya loo xukumo oo qalanqalla iyo rabshado dambe aanay u soo bixi karin oo maamulka loo baahiyo muslimkii bari isaga dhammaantii way liqeen bari wixii muslim xigay waan oran karo waqtiga mala muslimiinta inta ugu badan bay haayeen iyaga dhammaantood way liqeen bartamihii muslimka intii ku noolayd oo ah marka Ciraaq ilaa Masar inta ka dhaxla ah iyana qalanqal tiro badan baa ka jira oo dawlad Ayyubiya iyo Cabbaasiya iyo wixii dhex socday qalanqal tiro badan baa ka jira galbeedka muslimiinta marka la eego iyana waxa duntay dawladii dawlad muwaxidiin loo oran jiray saadaradeed iyana muran kale ayaa ka jira oo marka loo eego Liibiya iyo Algeria iyo Morocco iyo Jazaa'ir waxaan marka la eego iyagana dawladii ka talinaysay intaas oo dhamay way duntay oo kala daadsantay dawladda Tataarku muslimiinta iyo kristankaba dhibaatay u geysteen dhul badanna way ka qaadeen maca dalik muslimkuna isaga mashquul isku ahaa kristanka inta soo hadhayna in muslimka la weeraraabay mashquul ku ahaayeen yurubta galbeed waqtigaasi ciidamay ururinaysay umay ururinaynin ciidamadaasi inay furtaan yurubtii bariya la qabsaday ama Tataarkii nafta isugu keenay in la iska celiyo ee waxay u ururinayeen in ay dhul kale muslimiinta ka qaadaan iyaguna oo ay weerar soo qaadaan yurub marka dagaal bay u diyaar garowday muslimiinta lagu qaado siiba wadankan Shaam la yiraahdo iyo Masar Tataarka laftiisi waxay dhex galeen bulshadii ay la noolaayeen siiba dumar badan bay guursadeen oo dumarkii cadcadda ee kristanka ah maadaama muslimiintu dumarkoodu aan loo ogolayn inay guursadaan gaaladu dhanka kale Christianity waxay ka faa'iideeyeen xididnimadii ay la xididayeen nimankii Tataarka ee dhayarka ahaa dabeetana dumar badan bay ka guursadeen guriyihii boqortooyada dumar masiixiya tagay soo dhaweyn badan bay ka heleen dhankaasi qaada kamida qaadadii Mongoolka laftoodu Christianity ay qaateen 640 markay taariikhdu maraysay waxa dhintay isagana boqorkii ka talinayay dawlad Cabbaasiya al-Mustansir billah ayaa dhintay kadib waxa qabtay inankiisii la oran jiray al-Musta'sim billah khilaafada muslimiinta ninka qabtay waxa ahaabay nin ku caan baxay quraanka akhrintiisa waxa ahaabay cilmiga tafsiirka iyo fiqiga nin wax doora ka yaqaana acmaasha khayrka nin aad ugu fiican buu ahaa laakiin waxay yiraahdeen cilad buu lahaa waxa haysatay bay yiraahdeen ghafla can siyaasa nin wadaad uu buu ahaa wadaadnimadiisa ku fiican quraan akhriskiisa iyo wardigiisa iyo cibaadadiisa لكن ما أهين بيلين سياسي محنكة ووقت كان ووقت الشدة ووقت الدجال ووقت أباهن نن تجربة سياسية في عنله مركان نن ودادو عبادة كفي عن بوها بيلين لكن ما أهين هبيرات خبرة سياسية في عن لله ولبا ما أهين بيدادا ننكلا يقانا رقا سيدا الله دورتو يحاشيدا وضريو سيدا أوجد داداد الليته أيو كدكتي وزير الأول كيسوحها نن شيعة أبو كدكتي وفي عينين حاشية ليدتا يصور الصدي وحين هذان مو نقنن رجل الموقف أما وقت قربت تاجنت إنك يوم متى صار لها مو نقنن دولتي تتاركنا وحنا وقتها كان كيوك مركو قبصدي اللي بقول سقالي صدام كي إلى يلح بقول يلح يا فرتن كي تضبصن وهي في ليا لبصنا من 6 سنين حاس كي سامر كي دم قبطي
toddobadaas sannadood wax waddanoo cusub may furanin yacni mongolianisku dagaal cusub oo waddana may qaadanin waxay isku dayeen inay waddannadii ay qabsadeen inay hagaajisan karaan ama ilaashan karaan reer galbeedku wakhtigaas iyaguna waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan siiba waxay u arkayeen colaadda iyaga iyo muslimka u dhexeeya inay colaad rasmiya oo aan gaboobaynin oo soconaysa ay tahay laakiin nimankani maadaama aanay caqiide iyo diin cusub wadin weliba waxaa taarikhyahanada qaarkood ay tilmaamaan mongolianisku ama tataarku diimaha aad umay faragelin jirin ama may necbayn laakiin qaanuun yaasa la yidhaahdo alyaasiq bay carabtu qortaa ama alyaasi laakiin yaasa bay kuwa kala qoraan qaanuun la yidhaahdo bay lahaayeen qaanuunkaasi qasab buu ahaa qaanuunka dowladda sidan cilmaaniyiinta oo kale diintaa doonaysa ku cibaadayso laakiin qaanuunka dowladdu inuu qasab yahay nidaamkii islaamiga ee wakhtigaa jirayna waxaynu naqaanaa islaamku caqiide iyo shareeco iyo qaanuun kala baxsanay ma jiro laakiin diimaha ay kala baxsan yihiin way ku hoos noolaan karayeen waayo inuu kiniisad la dhistay iyo in masaajida la dhistay iyo waxaasi wax weyn kama ahayn bale taarikhyahanada qaarkood baa waxay yidhaahdaan 16 gobol ee ay sameeyeen tataarku magacyada islaamiga ragga watay wax maamulaya 9 bay ahaayeen 9 ay u dhiibeen provinceski kuwa kalena Chinese bay u badnaayeen bay yidhaahdaan waayo Mongolianisku niman reer miyiga oo dagaalyahanna bay ahaayeen laakiin rag maamul yaqaana ma ahayn saadaradeed meelaha ay qabsadaan ama meelaha qaarkood markay maamul iyo idaarad timaado cid maamul yaqaan ay daydayan jireen oo inay u dhiibaan iyagu se waxay ahaayeen niman fardaha leeda ku fuula oo faras golongolay wata oo dagaalkoodu surca yani dhulka la yiraahdo way isaga jareen meelo malaa'imka gaadhiguba uu dirqa ku jaraa la yiraahdaa maalmo yar bay u kala gudbi jireen meel aan laba ogeyn inay waaga ugu bari jireen iyagoo dhowr kun ama 10 kun oo askari oo faras fuushan xataa waxa la tilmaamaa taarikhyahanadu fardahooda kooro caan kuma ahayn la dafuul bay ku wadan jireen marka niman aad u fudud oo dheereeya bay ahaan jireen waqtiga deganaanshihu jiray reer galbeedku waxay u fakarayeen iyagu baytul maqdis iyo agagaarkeeda iyo muslimiinta siday u jabin lahaayeen dabeetana innocent-kii afraad waa boobkii innocent la odhan jiray innocent-kii afraad safaarad buu diray wuxuu u diray Karakorum ama Qarakorum meeshii looga talinayay Mongolianiska wuxuu leeyahay waxaan idinka codsanayaa dawladda Mongoolka iyo boobka iyo Yurubta galbeed ee Catholic ahi inaynu weerar wada jira ku qaadno dadka muslimiinta ah siiba Masar iyo Shaam weerar wada jira inaynu ku qaadnaan idinka codsanaya waxaan kaloo ka codsanayaa buu inay diinta masiixiga qaadato boqortooyadii baa waraaqdii u timi kiyaku wuxuu aad uga xanaaqay boqorkii boqorrada dunida ka talinay in la yiraahdo diin soo galbaa cadh ku keentay sadaradeed wixii uu soo qoro dhan wuu diiday wuxuu yidhi adiga waraaqdu uu soo qoray leeyahay adiga iyo boqorrada Yurubba inta hadhay waxaan idinka rabaa idinkoo taaca oo adeecaya oo iyo hoggaansan inaad timaadaan dhammaantiin waraaqa buu qoray innocent-kii afraad boobka kani hadaf buu lahaa muu ka quusanin weli ee quwaadii ka sokaysay gaar ahaan Bershiya qaa'idkii joogay ee ka mid ahaa nimankan Mongolianiska Bijo nin la yiraahdo oo marka Bershiya iyo inta tan qaa'idkoodii maamulayay ayuu haddana safaaro kale u diray isagoo leh waa 645 codsigii mar labaad u diraya Tabriz magaalo la yiraahdo Tiflis bay qoran qoladan reer galbeedku Tabriz kaas baa loo diray ninka jooga Bijo la yiraahdo inuu aqbalo qadiyadatan aad buu u soo dhaweeyay Bijo wuu karaameeyay qoladii masiixiyiinta ee u timi laakiin de isagu go'aan ma qaadan karo ilaa iyo boqorkii weeraaye kii uu qaato boqorkiina waxa loo geeyay ra'yigiisu halku joogay wadannadii reer galbeedku fikradii uu dirayay boobka qura kuma ay qancin iyo waxa kiiye ciidan urursibaaba la bilaabay
bilaabmay Louiskii sagaalaad ee Faransiiska ka talinayay inuu ciidamadii Catholic oo dhan soo hogaamiyo ciidamo ururis in lagu sameeyo jasiiradan Qubrus la yiraahdo oo ciidamada la isugu keeno markuu Qubrus yimi ayuu haddana waraaq kala qoray tii saddexaad baa la qoray oo laga codsanayo nimanka Tataarka ahi hadiyooyin tiro badan iyo wax tiro badan uu dhiibay waa 646 bay maraysaa markaa in dagaalka ay la soo galaan marka kan khaqaanku yani asalka khaanka aha boqortooyada laakiin markuu odaygii dhintay caruurtiisii kii boqortooyada loo doortay meena kuwa kale midba gobol dawlad gaar ah baa la siiyay mid walba khaan baa loo bixiyay kii madaxda wada noqdayna marka khaqaan bay ka dhigeen khaqaanku marka waa kiyok waa kan meesha oo dhan isku haysta khaqaanku uu soo dhaweeyay nimanka kan aad uu soo dhaweeyay laakiin waraaqdii saddexaad waxay timi 646 isagoo kiyogii markii hore deel xidhiidhka la sameeyay isna dhintay geeridiisa bay la kulmeen geeridiisa markay la kulmeen markan meeshii waxa qabsatay saddex caruur oo yar yar buu ka tagay hooyadood ayaa oqol qaymosh la yiraahdo ayaa looga dhigay wisaaya inay carruurta hayso oo kuriso ilaa intay dawladana iyadu boqortooyada sii maamusho laakiin nimankii dagaalyahanadii reer miyiga ahaa kumay qancin in naagi ka taliso dabeetana mudda dawladii Mongolian isku khalkhal gudeed uu galay 3 sanadood bay islaantaasi hor fadhiday waa la murmay akhiran waxa guuleystay loobigii inanka weynay wixii uu ka tagay ka yari wixii uu ka tagay Georgiga iyo carruurtiisa waa Batu ciidankii Yurub qabsaday ninkii hogaaminayay family-gaasi iyo family-gii yara oo tuuli ay yiraahdaan labada families gargaarsaday oo gaadiya iyo Chagtai labada family-na way isgargaarsanayeen oo iyaga 3 boqor kala dambeeyay ahaa labadan boqor kala dambeeyay siiba akhiran boqortooyadii qoladii yaryareed iyo wixii oo dhan waa laga qaaday afartii inana uu dhalay ninkii la oran jiray Genghis Khan kiisii ugu yaraa qolo ku abtirsata ayaa meesha qabsatay waa Mango ama Manko ninka la yiraahdo Manko Khan loo qoro marka la dhameystirayo ninkaas meesha lagu wareejiyay saddexdan sanadood ee habartani meeshan haysatay qoladii Faransiiska iyo reer Yurubkii wada socday way sugi kari waayeen in ciidamo u diyaaro Qubrus weerarkooda ay qaadeen waa Crusadeska weerarkii toddobaad ee taariikhyahanadu ka waramaan ay qaadaan ee macruufka ah Masar bay ku soo qaadeen Salih al-Ayyub ninkii la oran jiray markuu Masar haystay halkay dawlad Mamalik ka soo bilaabmi doonto boqorkii muslimiinta markaa meesha tan haystay wuu xanuunsanayay isagoo xanuunsanayay yiri igaya frontka la keenay meesha dagaalku intuu soconayay 3 maalmood markuu dagaalku socday meelahaas uu geeriyooday shajaratu dur gabadh la yiraahdo uu qabay ayaa qarisay yaan la sheegin baa la yiri boqorku waa ciidamada niyad jabaya islaan iyo dhowrkii janana ciidankaba u tashaday waxay yiraahdeen boqorku inuu dhintay aan qarino inanku dhalay Tooran Shaam buu ku maqayo meel Shaam buu haystaa inankaana hal loo yeedhay dhaaheen dagaalkuna hal socdo boqorkiina waa caafimaad qaba oo aan dadka ku niraano muslimka dagaalkii sidii buu ku socday dagaalkii wuxuu socdaba Louiskii sagaalaad isaga nolol lagu qabtay markii dambe boqorkii Faransiiska isaga la qabtay Louiskii sagaalaad oo maxbuusnimo loo qabtay Crusadeska dagaalkoodina waa la jabiyay Tooran Shaahna wuu yimi isna wuu dhintay shajaratu dur ayaa meesha qabsatay askarigii janankii ugu weynaa ciidamada Izzuddin Aybak la yiraahdo bay guursatay dadkii way ka dhaadhici weyday boqortooyadeedii ninkan bay guursatay ninkii baa akhiran inankii baa yimi inankii baa la isqabtay way ka takhaluseen dawlad al-Mamalik taad maqashaan halka ka bilaabantay markaa Izzuddin Aybak iyo qolada tan halka ka bilaabantay uma jeedna inaynu taariikhda ka warrano laakiin waxaynu u jeednaa inaynu tilmaamno Masar Faransiiskii iyo reer galbeedkii iswatay markii ay soo weerareen intii ay isku mashquulka ahaayeen Tataarku yaanay jawaab soo celinin ayaa laga takhalusay waxa soo baxay markaa dawlad cusub oo Tataarku uu leeyahay
waxaa loo magacaabay ninkaa la yidhaahdo Manco Khan caalamul islaami markii ay qabsadeen masaaridii markii ay guulaysteen ismay daynin ee ayuubiyiintii kale shaam haysatay isdileen iyagu muslimiintu sidii bay mashquul isugu yihiin xaggan christianity dagaala kaga socda crusadeski xaggana tataarka kaga socda dhexdoodana la isma tusayo oo wali sidii bay isu dilayaan markii Fransiiskii laga takhalusay ba waxa bilaabmay dagaaladii sokeeye ee ka dhaxeeyay shaam iyo Masar labadaba caa'ilo qura wada haysata oo dawladda Ayuubiya ba ka wada jirta halkan waxa bilaabmaya markaa waxay ku tilmaamaan al-ijtiyaax الثالث ama weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee ay soo qaadaan nimanka loo yaqaano Mongolianisku weerarkani wuxuu ku bilaabmayaa iyadoo wixii Ciraaq galbeed ka xiga wixii Ciraaq bari ka xiga oo dhan nimanka Tataarka ay haystaan muslimiintii aad loo gumaaday mesela muslimkii Beershiya deganaa dhulkan Iran la yiraahdo waxay dhahan 10 ilaa 15 milyan bay ka dileen waqtigaas siday Beershiyanka tiradoodu u yaraatay bay yiraahdaan Beershiyanku dawlad weyn oo macruuf ay dunida ka ahaan jireen dad ahaanna qoomiyadkii tirada badnaa bay ka mid ahaan jireen laakiin dagaalada Tataarka gadaashood bay yiraahdaan Beershiya tiradeedii rasmiga ahayd waxay dib u soo gaadhay qarnigan aynu hadda noolahay bartamihiisii qarniga 20aad bartamihiisii ayay tiradii Iiraantu dib u soo gaadhay baa la yiraahdaa waqtiyada meeshii ay joogi jirtay sida ogeed baa waxa lagu tilmaamaa waqtigaas Tataarku uu marayay 10 ilaa 15 milyan oo Beershiyan muslimiin inay xaaqeen Manco Khan ibn Tulu ibn Genghis Khan weeyaan isagu inankii ugu yaraa ee Genghis Khan baa dhalay marka kan laakiin waa nin 43 jira Manco Khan waxa kale oo uu kaga disan yahay kuwii hore isaga hooyadii waa Kristan waa Nestoriya Nestorian Christians ka ku yiraahdaan al-Kanisa Nestoriya ayuu ka tirsan yahay hooyadii isagu wuxuu qaatay fikrad tii awowgii qoriyay dhaxeeha loo kaadiyeeyo intan aynu xijinayo ma qaadanin fikradii Genghis Khan ee ahaa dunida calan qori waa inuu ka taagmaa dadna waa inay Mongol u noqdaan inta kalena waa inay hoos joogtaa fikradii ahayd buu dib u nooleeyay wuxuu leeyahay waxa dawladdan ay dhismaysaa qura marka aynu weerarada rasmiga bilowno dawladdu marka isagu dhaxla waxay haysataa Kuuriya ilaa Poland inta ka dhaxleh waa dawlad ka talisa min Kuuriya ilaa Poland ayuu dawlad ka yahay saddex nin ay walaalayihiin ayuu kala diray nin wuxuu ku reebtay caasimadda oo inuu la taliyo u noqdo gobolkan caasimaddu joogana maamulkiisa uu hayo waariqa Boqa bay yiraahdaan Boqa ninka la yiraahdo meesha ku reebay wadanka China iyo Indo-China inta isku dhanna walaalkiisa kale oo Kabalay ama Qabilay ee Arabtu qorto ayaa loo dhiibo leeyahay waa inaad maamushaa walaalkiisa saddexaad halagu la yiraahdo ama hoolaako Arabtu qorto hoolaakana waxa loo dhiibay dawlad Khawaarizmiya inta ay ka talin jirtay ama Persia ayaa loo dhiibay waxa la amray inuu weerar qaado markaas uu qabsado maxay dawlad Abbasiya wuxuu bilaabay marka dawladnimadan markan waxa ku soo kordhaya taasiirka masiixiga waayo hoolaaka laftiisu islaanta uu qabaysna waa Kristan boqorkii hooyadii waa Kristan hoolaakana caalamul islaami loo soo dirayna isna xaaskiisu waxa weeyaan waa masiixiyad oo waliba Taghis Khatun halka khaanka laga yiraahdo ragga dumarkoodana Khatun la yiraahdo waa queeniyana Taghis habartan la yiraahdo waa islaam waliba masiixiyad xaq jirta aad ugu naban bay yiraahdaan ay ahayd wuxuu bilaabay markaa inuu dejiyo khitadii dawlad Abbasiya sidii looga takhalusi lahaa كل فرح ما يسان الدولة العباسية نريد يا أحمد سوف رسيل هلقا كجوجيو السلام عليكم